magaalo aan hadda ka talin booliis. Maanta waxaan nimid mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarta badan dunida, caasimadda Haiti, Port-au-Prince. Waa magaalo u kala qaybsan kooxo hubaysan, dano qarsoon iyo faragelin shisheeye. In ka badan 200 oo kooxood oo hubaysan ayaa ka howlgala caasimadda oo keliya. Waxaana hogaamiya nin lagu naanayso Barbero. Kooxahani waxay ku midaysan yihiin magac macnihiisu yahay wada noolaansho. Maanta waxaan booqan doonaa xeryaha dadka ka cararay rabshadaha kooxaha hubaysan iyo xaafado gebi ahaanba burburay. Kadibna waxaan la kulmi doonaa iska caabinta dad rayid ah oo qaatay hub si ay u difaacaan xaafadahooda. Ugu dambayn waxaan la kulmi doonaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha kooxaha hubaysan. Qayb walba waxay muujinaysaa sheekada dal burburay, balse dadkiisu weli u halgamayaan badbaado. Tani waa gurigeenna. Aan bilowno. Waxaan joognaa jasiirad ay wadaagaan laba dal. Qayb ka mid ah waa janno, halka qaybta kalena ay tahay cadaab. Jamhuuriyadda Dominican waxay ku nooshahay barwaaqo, halka Haiti ay ku jirto dagaal furan. Waxaan nimid caasimadda Port-au-Prince, halkaas oo aagga hoteeladu yahay meesha keliya ee ay joogaan dhismayaasha dowladda, booliis iyo hoteelo. Aaggan wuxuu ku yaal buur godoon ah, si adagna loo ilaaliyo sababtoo ah bannaanka waa adduun kale. Hoosta naga muuqata waa Port-au-Prince, dal hore u jebiyey gumaysigii, balse maanta ku dhacay fowdo. Waxaan hadda joognaa xeryaha barakacayaasha dad ka cararay rasaasta kooxaha hubaysan. Waxay halkan joogeen bilo badan, mana oga goorta ay ku laaban doonaan guryahoodii. Guryahoodii waa la gubay, xaafadahoodii waa burbureen. Waa dad barakacay, dalna waa la ilaaway. Qoysas badan ayaa ku nool teendhooyin iyo hoy ku meel gaar ah. Marka roobku da'o, dhibku wuu sii bataa. Tani ma aha nolol bini'aadannimo. Dal mar astaan u ahaa xorriyad, maanta wuxuu noqday astaan cabsi. Waxaan galnay xaafad gebi ahaanba burburtay. Guryo dumay, rasaas meel walba ka muuqata, raadad dagaal. Now we begin in the displacement camps, where people who escaped gang bullets live. There are so many of them. Waxaan galnay xaafad gebi ahaanba burburtay. Guryo dumay, rasaas meel walba ka muuqata, raadad dagaal oo cad. Dadkii xeryaha ku jiray waxay ka carareen waddooyinka. Waxaa jira baabuuro qarxay iyo burbur muujinaya in dad halkan lagu gubi jiray iyagoo nool. Inkastoo kooxuhu ka baxeen xaafaddan, haddana waxay u eg yihiin meel la duqeeyey. Kooxaha hubaysan hadda waxay si buuxda u maamulaan dekedaha, shidaalka, korontada, biyaha iyo xitaa qaybo ka mid ah garoommada diyaaradaha. Xaafado badan ayaa la xiray si looga hortago afduub iyo weeraro. Halkaas ayaan kula kulmaynaa iska caabinta dad diiday inay cararaan kuna adkaystay difaaca guryahooda. Iska caabintan waa dad caadi ah, farsamayaqaano, beeraley, aabayaal. Waxay xiran yihiin dareen u gaar ah, waxayna leeyihiin barkontaroolo ay ku hubiyaan dadka soo galaya. Haddii ay qabtaan xubin ka tirsan kooxaha hubaysan, waxay u gudbiyaan booliiska. Waxay yidhaahdeen, gurigeenna ayaan difaacaynaa. Sidee ayay Haiti heerkan ku gaartay? Ka hor madax bannaanida, dalka waxaa loo yiqiin San Domingue, gumaysigii ugu qanisan Faransiiska. Hantidiisa waxaa dhisay addoonsiga 100,000 oo Afrikaan ah. Sanadkii 1804, Haiti waxay noqotay dalkii ugu horreeyey ee madow ah oo xor ah. Laakiin Faransiisku wuu ciqaabay, wuxuuna ku qasbay dayn la yidhaahdo deynta madax bannaanida, taas oo in ka badan 100 sano wiiqday dhaqaalaha dalka. Sanadkii 1915, Maraykanku wuu soo duulay, wuxuuna la wareegay bangiyada iyo dahabka. Sanadkii 2001, dhulgariir baabi'iyey caasimadda, kumanaan ayaana ku naf waayey. Halkan waxaa degay wasakh iyo dhiiqo, lagumana noolaan karo. Maxaan samaynaa adeer? Sanadkii 2021, madaxweynihii waa la dilay, dowladdiina way burburtay. Firaaqadaas waxaa buuxiyey kooxaha hubaysan. Hadda waxaan galnay aag ay kooxuhu maamulaan. Gaari gaar ah lama adeegsan karo. Waxaan dhex milanaynaa dadka. Kooxahani waxay hoos yimaadaan Barbero, waxayna sheegaan inay maamulaan inta badan magaalada. An entire neighborhood, completely abandoned. All its residents have left. Look at that. It was a war zone.
The people you saw in the camps fled from these very streets. dhalinyaro aad u yar ayaa hub sita iyagoo aan lahayn mustaqbal cad. mararka qaar hubka waxaa ka iibiya booliis musuqmaasuq dartiis. fiir halkan waxaa yaala meyd ama madax qofeed. sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa gaari weyn oo xamuul ah oo ku burburay halkan. wallaahi aad iyo aad ayay indhahaaga u qabanayaan dhul burburay iyo magaalo burburtay. sidoo kale halkan waxaad ku arkaysaa xaafad cidlo ah oo lagu kala cararay wax degan lama jeedo. halkanna waa xaafadda xeebta u dhow oo hal qof oo bida'aadan uusan deganayn. wallaahi waa yaabaysaa sababta ma aqaana wallaahi. waxa keliya oo joogo waa raggan hubaysan oo awooddooda ku jooga ciidankii dowladdana ka ciirsaday. sidoo kale waxay maamulaan dekedda aeroboortka iyo xeebtaba iyaga ay gacanta ugu jirtaan. sida u jeedka halkan waa albaabkii hore ee xaafadaha laga geli jiray ee ammaankooda ay ku sugan jireen, laakiin haddeer waa cidlo. Now, we'll meet the resistance. magaalo aan hadda ka talin booliis. maanta waxaan nimid mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarta badan dunida, caasimadda Haiti, Port au Prince. waa magaalo u kala qaybsan kooxo hubaysan, dano qarsoon iyo faragelin shisheeye. in ka badan 200 oo kooxood oo hubaysan ayaa ka howlgala caasimadda oo keliya, waxaana hogaamiya nin lagu naanayso Barbero. kooxahani waxay ku midaysan yihiin magac macnihiisu yahay wada noolaansho. maanta waxaan booqan doonaa xeryaha dadka ka cararay rabshadaha kooxaha hubaysan iyo xaafado gebi ahaanba burburay. kadibna waxaan la kulmi doonaa iska caabinta dad rayid ah oo qaatay hub si ay u difaacaan xaafadahooda. ugu dambayn waxaan la kulmi doonaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha kooxaha hubaysan. qayb walba waxay muujinaysaa sheekada dal burburay, balse dadkiisu weli u halgamayaan badbaado. tani waa gurigeenna. aan bilowno. waxaan joognaa jasiirad ay wadaagaan 2 dal. qayb ka mid ah waa janno, halka qaybta kalena ay tahay cadaab. jamhuuriyadda Dominican waxay ku nooshahay barwaaqo, halka Haiti ay ku jirto dagaal furan. waxaan nimid caasimadda Port au Prince, halkaas oo aagga hoteeladu yahay meesha keliya ee ay joogaan dhismayaasha dowladda, booliis iyo hoteelo. aaggan wuxuu ku yaal buur godoon ah, si adagna loo ilaaliyo sababtoo ah bannaanka waa adduun kale. hoosta naga muuqata waa Port au Prince, dal hore u jebiyey gumaysigii, balse maanta ku dhacay fowdo. waxaan hadda joognaa xeryaha barakacayaasha dad ka cararay rasaasta kooxaha hubaysan. waxay halkan joogeen bilo badan, mana oga goorta ay ku laaban doonaan guryahoodii. guryahoodii waa la gubay, xaafadahoodii waa burbureen. waa dad barakacay, dalna waa la ilaaway. qoysas badan ayaa ku nool teendhooyin iyo hoy ku meel gaar ah. marka roobku da'o, dhibku wuu sii bataa. tani ma aha nolol bini'aadannimo. dal mar astaan u ahaa xorriyad, maanta wuxuu noqday astaan cabsi. waxaan galnay xaafad gebi ahaanba burburtay. guryo dumay, rasaas meel walba ka muuqata, raadad dagaal. Now we'll go see one of their checkpoints. Let's go. waxaan galnay xaafad gebi ahaanba burburtay. guryo dumay, rasaas meel walba ka muuqata, raadad dagaal oo cad. dadkii xeryaha ku jiray waxay ka carareen waddooyinkan. waxaa jira baabuuro qarxay iyo burbur muujinaya in dad halkan lagu gubi jiray iyagoo nool. inkastoo kooxuhu ka baxeen xaafaddan, haddana waxay u eg yihiin meel la duqeeyey. kooxaha hubaysan hadda waxay si buuxda u maamulaan dekedaha, shidaalka, korontada, biyaha iyo xitaa qaybo ka mid ah garoommada diyaaradaha. xaafado badan ayaa la xiray si looga hortago afduub iyo weeraro. halkaas ayaan kula kulmaynaa iska caabinta dad diiday inay cararaan, kuna adkaystay difaaca guryahooda. iska caabintan waa dad caadi ah, farsamayaqaano, beeraley, aabayaal. waxay xiran yihiin dareen u gaar ah, waxayna leeyihiin barkontaroolo ay ku hubiyaan dadka soo galaya. haddii ay qabtaan xubin ka tirsan kooxaha hubaysan, waxay u gudbiyaan booliiska. waxay yidhaahdeen, gurigeenna ayaan difaacaynaa. sidee ayay Haiti heerkan ku gaartay? ka hor madax bannaanida dalka waxaa loo yiqiin San Domingue, gumaysigii ugu qanisan Faransiiska.
hantidiisa waxaa dhisay addoonsiga 100,000 oo Afrikaan ah. Sannadkii 1804 Hayti waxay noqotay dalkii ugu horreeyey ee madow ah oo xor ah. laakiin Faransiisku wuu ciqaabay wuxuuna ku qasbay dayn la yiraahdo deynta madax-bannaanida taas oo in ka badan 100 sano wiiqday dhaqaalaha dalka. Sannadkii 1915 Maraykanku wuu soo duulay wuxuuna la wareegay bangiyada iyo dahabka. Sannadkii 2001 dhulgariir baabi'iyey caasimadda kumanaan ayaana ku naf waayey. Sannadkii 2021 madaxweynihii waa la dilay dowladdiina way burburtay. Firaaqadaas waxaa buuxiyey kooxaha hubaysan. Hadda waxaan galnay aag ay kooxuhu maamulaan. Gaari gaar ah lama adeegsan karo. Waxaan dhex milanaynaa dadka. kooxahani waxay hoos yimaadaan Barberouge waxayna sheegaan inay maamulaan inta badan magaalada. Dhalinyaro aad u yar ayaa hub sita iyagoo aan lahayn mustaqbal cad. Mararka qaar hubka waxaa ka iibiya booliis musuqmaasuq dartiis. haddii aad ka heshay muuqaaladeena follow like oo share ku samee muuqaalo badan ayaa kuu soo socda mahadsanid.